Hugo Ekitike oo qarka u saaran inuu ku biiro Liverpool. Florian Plettenberg oo soo bandhigay war farxad geliyay taageerayaasha Reds. Saxafiga caanka ah ee arrimaha suuqa kala iibsiga, Florian Plettenberg ayaa shaaca ka qaaday xogtii ugu dambeysay ee ku saabsan wadahadalka u dhexeeya Liverpool iyo Eintracht Frankfurt ee ku aadan weeraryahanka reer France Hugo Ekitike. Tani waxay daba socotaa warbixino shalay la helay oo tilmaamaysa in kooxda ka dhisan Premier League ay si aad ah ugu dhowdahay saxiixa xidigii hore ee PSG. Plettenberg ayaa sheegay in Liverpool ay dib u bilowday wadahadalka shalay oo Jimco ahayd si ay heshiiska ula dhamaystirto Eintracht Frankfurt. Ilaa hadda wax heshiis ma gaarin labada kooxood, balse wadahadalladu way socdaan waana kuwo dardar ku socda. Dhinaca kale, shuruudaha shakhsiga ah ee u dhexeeya Liverpool iyo Ekitike ayaa la isku afgartay. Tani waxay muujinaysaa in kooxda Reds ay weli si dhab ah ugu hoolan tahay saxiixa Ekitike, iyadoo laga yaabo in heshiis rasmi ah la gaaro maalmaha soo socda haddii wadahadalka uu si wanaagsan u socdo. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ay ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.